Aad u jeedaan wadankeena ayuu ka baxaa waa geed aad u wanaagsan meeshan beer waxaa jirta boqoradan aad u jeedaan waxaa loo yaqaanaa Hatshepsut 1478 ayay waxay kasoo dhoofsan jirtay xabagta geedkan wadankeena sidaa daraadeed beerahooda ayay ku beerteen marka meeshan waa meel loo dalxiis tago waxaan ku aragnay geedkan saad og jeedaanba waxaa loo yaqaanaa geedka beeyada ama se geedka fooxu ka baxo saan ayuu u egyahay annagana markaan beertii tagnay waxaan ka helnay foox aad u udgoon oon kasoo guranay geedkan waxtarkiisa waxaa kamida haddii aad cabtid wuxuu u fiican yahay oo dhisaa gidaarka mindhicirka fahmada kor ayuu usoo qaadaa daawooyinkana waa laga sameeyaa wadankeena qani ayuu ku yahay oo geedkan xabagtiisa waan dhoofsanaa lacag badan ayaan ka sameynaa sidoo kale geedkan hada waaba geed wadankeena qani ku yahay wuxuu leeyahay foox udgoon oo aan shidano saan ayuu u egyahay maanta kadib baro geedka fooxa ama beeyada beerta qurxan ayay ku beerteen annagana beerta ayaan dalxiis ku ahayno waxaan kale oo aan beertan ku aragnay waxyaabo wadankeena kaliya ka baxa laakiin dadku intay soo dhoofsadaan kadibna ay wadamadooda ku beertaan waxaan kaloo meeshan geedkan beertan ka baxa geedkan aad u jeedaan oo cawsku hoostiisa yaalo waa geed miro macaan leh shimbiruhu jecel yihiin idin dhaafaya magaciisa commentiga igu dhaafa haddaa ka heshid videoga like sii share gareeya si aan usoo geliyo kuwa kaleeto oo lamida ama si ka wanaagsan